dowladda Niger iyo militariga xukumo ayaa cambaareeyay isla markaana sheegay in ay weeraro iskaashi argagixiso ah oo ay ka dambeeyaan dalalka Faransiiska, Benin iyo Ivory Coast ee ka dhaceen wixii ka dhacay ay ka dambeeyeen. sidaa daraadeedna xukuumadda Niamey ayaa ku eedeysay in garoonka diyaaradaha ee caalamiga Niamey International Airport weerar argagixiso ah ka dhacay halkaas oo loogu geysay ribay ama lagu dhibaateeyay khalkhalgelinta dalka ay tahay. waxay ugu yeedheen in ay tahay koox huwana oo wadanka Faransiiska wakiil oga ah abuurista kooxaha argagixisada. wadamada galbeedka Afrika ee saddexda ay ka xoroobay gumaysiga dadbanaa ee dalka Faransiiska ayaa bariyay ugu dambeeyay oo banaanka u soo saarayay gaboodfalada dalalka caalamka Islaamka iyo dalalka qaaradda Afrika ka soconaya ee isugu jira boobka falalka argagixiso inay yihiin waxyaalo ay soo dhoofiyaan dalalka reer galbeedka. General Abdurrahmani Etiani oo isagu awoodda qabsaday 2023 afgambi military oo andi ku daadanaya telefishinka qaranka wadanka wuxuu ka cambaareeyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron hogaamiyaha dalkaasi Benin Patrice Talon iyo Ivory Coast madaxweynaha Alassane Ouattara isagoo sheegay in ay saddexda nin ay yihiin iskaashatada sharka labada dal ee Benin iyo Ivory Coast madaxdooda ayuu ku tilmaamay in ay yihiin camaalin ama dad camiil u ah ayuu yiri ama adoon u ah dalka Faransiiska. sidaa daraadeedna markii Faransiiska iyo reer galbeedka aan iska burinay ayay go'aansadeen in ayna sii dhibaan. hogaamiyaha ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa mid loogu talagalay in lagu dureeyo ayuu yiri meel u jirta qiyaastii 10 kilomitir garoonka diyaaradaha caalamiga iyo meesha madaxtooyadu ay degan tahay intaba. wararka ayaa xaqiijinaya in halkaas ay ka dhaceen weerar isku day ah taasoo la sheegay in la joojiyay. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Niger Salifu Modi ayaa sheegay in 30 daqiiqo ka hor inta uusan weerarka uusan bilaaban ay ka war heleen dabadeedna ay kiciyeen diyaarado dhinaca cirka iyo drones ay ku burburiyeen kooxdaas. waxay sheegeen in la xiray markii dambana kooxda isla markaana kooxdu ay sheegtay mas'uuliyiintoodu cidda dhaqaalaha siinaysay. waxaanu nahanay koox proxies oo wakiil ka ah French annagoo soo marnay wadamadaasi. waxa ay sheegtay xukuumadda Niger in ay jiraan wadamo badan oo aan ogeyn dhibaatadu meesha uga imaanayso maalin walbana falal argagixiso loo geysto. waxayna ka digtay haddii ay wadamadaasi doonayaan inay ogaadaan waxa ku dhacay inay marka horeysa baaritaan sax ay sameeyaan iyadoo oo wadamada aysan helin ayaa la yidhi inta badan xogta dhabta ah. ra'iisul wasaaraha wadanka Canada McCartney iyo ra'iisul wasaaraha ama gudoomiyaha gobolka ee loo yaqaan Alberta ayaa shir jiraayadu wada jir u qabteen. waxay ugu yeedheen madaxweynaha dalka Mareykanka inuu xushmeeyo madax banaanida qarannimada iyo xuduudaha siyaasadeed dalka Mareykanka. sidaa daraadeedna maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka waxaanu ka sugaynaa in ay mar walba ay qiimeeyaan oo ay xushmeeyaan ay yiraahdeen gobonimada sovereignty-ga wadanka Canada iyadoo taasi caddahay. waxay sheegeen in wadahadaladii ugu dambeeyay Trump ay la yeesheen ay ka dalbadeen marka u horeysay inuu warkiisa saxo marka uu doonayo inuu ka hadlo Canada. madaxweynaha Mareykanka ayaa dhawaan ugu yeedhay ra'iisul wasaaraha Canada McCartney in uu yahay gobernatore ama gudoomiye gobol taasoo macnaheedu ay tahay inuu ka wado waa gobol ka mid ah Mareykanka. Alberta hogaamiyaheeda Daniela Smith ayaa sheegtay in si aad u xoogan ay uga yaaban tahay habdhaqanada qaarkood. waxayna sheegeen in dalka Canada uusan qaadi doonin culeysyo waaweyn oo kamid ah maalin walba in lagu xadgudbo qaabkan wadanka uu yahay. wadanka kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weli uu la kulmayo cadaadis aad u xoogan oo dhinaca markay noqoto arrimaha gudaha. horta marka horeysa waxa aad loo hadalhayaa hadalada kala bedbedelan ee ka soo yeeray hogaamiyaha la taliyaha khaaska ah ee arrimaha xuduudaha madaxweynaha dalka Mareykanka uu diray Tom Homan ee gobolka Minnesota uu diray. wuxuu sheegay in ay diyaar u yihiin inay ciidanka dhimaan isla markaana halka ay ka yareeyaan saraakiisha joogta haddii ayuu yidhi ay xukuumadda maamul goboleedku ay ogolaadaan inay la shaqeeyaan. wararka qaarkood ayaa sheegaya inaysan ilaa hadda diidanayn maamul goboleedku inay la shaqeeyaan waaxda ICE iyo waliba kooxaha heer federaal laakiin si qaabka loo wada shaqeynayo ay ka harsan yihiin wax. Tom Homan waxa uu intaas ku daray in uu diyaar u yahay taasi. annagu gabi ahaanba ma dhiibayno mana wareejin doono ama howlgalkanadoo dhan waxaanu laakiin rabnaa inaanu si fariidnimo ah oo caqli wax u wadno. arrintan ayaa timid kadib markii dilkii labadii qof ee cadaanka ahaa ee Mareykanka u dhashay Renee Good iyo Alex Brady ee labaduba ay dhinteen ay ka dhalatay qaabka ay hay'adaasi wax u wado inay tahay sax iyo in kale. waxaa soo badanaya daba kacdoonada waaweyn ee hay'adan ka dhanka ah. arrintan waxay u egtahay marka dambaysa mid sii qadhaadhaanaysa. wararka qaarkood ayaa xaqiijinaya in ay jiraan kacdoon aad u xoogan oo gudaha ka socda. wararka ayaa xaqiijinaya in ay sidoo kale qaar kamid ah xubnaha aqalka Congress-ka ay arrinta ku kala qaybsameen. xataa xubno kamid ah kuwa jamhuuriga ayaa hadeerto dood ay u soo rixiyay ku aadan in lacagta laga gooyo hay'adda DHS Department
of Homeland Security iyo sidoo kale hay'adda ICE labadaba taasoo ay sheegeen in package-ka la kala reebo haddii kale dowladda inay xiranto ayaa laga baqaya haddii jimcaha heshiis la gaari waayo wararka ayaa sheegay in xaaladdu sii xumaa doonto dad aad iyo aad u badan ayaa marka dambaysa dhimanaya ayuu yidhi senator Chris Murphy ee gobolka Connecticut kaasoo ka digay inaysan haba yaraatee xisbiga dimuqraadiga aysan qaadi doonin talaabada xisbiga dimuqraadiga ayaa la sheegay dhinaca kale inay ka faa'iideysanayaan talaabadan dilka labada muwaadin ee Minneapolis lagu dilay ayaana noqotay hub ay ku dhangadayaan Trump isla markaana dad badan oo codbixiyaasha Mareykanka ayaa aad uga carooday markii ay arkeen labada qof oo rasaas aad iyo aad u arxan darra lagu ridayo isla markaana lagu dilayo senatarada qaarkood ayaa la sheegay inay hadeerta ay rabaan inay ka hadlaan ugu yaraan xataa waa kuwa jamhuuriga in la adkeeyo qaabka loo isticmaalayo dhaqaalaha hay'adan la siiyo oo ay ku jirto ayaa la qaabka ay dhaqaalaha u isticmaalayso hay'adan iyo dadka ka shaqeeya ayaa la siiyaa lacag aad u badan habeen dhax ayaa la siiyaa kooda howlgalka ku jira hoteelo 5 star iyo kuwa 7 star ayay seexdaan isla markaana baabuur qaaliya ayay wataan oo wada cusub kuwaas oo la sheegay in ay dawladdu leedahay laakiin dhanka kalena waxay sheegeen in ay lagu soo hoostaray dirbiba cutubyo waaweyn oo ay doonayso xisbiga dimuqraadigu kuwaas ay ka mid tahay qaybta caafimaadka iyo adeegga dadweynaha health and human service waaxda laborka ama shaqaalaha educationka transportationka housing and urban developmentga iyo waliba urbanka waa waxyaalaha deegaan baadiyaha ama deegaanka la xiriira iyo arrimo waaweyn tan ayaana la sheegay in xisbiga dimuqraadigu sidoo kale ku doonayo inuu hoos gashado mashaariicda dadka loo fududeynayo gaar ahaan dadka dhaqaalahoodu aad iyo aadka markaasi u yar yahay dhanka kalena xataa dadka aadka u caraysan waxaa ka mid ah ee dibinta ruugaya xubnaha dhinaca garsoorka maxkamadaha ayaa aad iyo aad uga caraysan arrimahaasi waxayna sheegeen in habdhaqanka qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada hay'adda ICE ay soo tarayso isla markaana habdhaqankoodu uu yahay kuwo muujinaya in aysan waxba soo baran oo ay yihiin dad aan aqoonta ciidannimo iyo discipline ciidannimo aan la barin waa maxay hadaba waxa la dhalisan yahay waxa la dhalisan yahay waxa weeye askarigu qaabka uu u isticmaalayo xirfadiisa wayna aqoon ku jirtaa oo ay ka mid tahay in uu mar walba ka fogaado in khasaare meesha ka dhasho xabad inay dhacdo qof inuu dhinto iyo qof inuu dhaawacmo waa priority-ga ugu badan ee la baro sidaa daraadeedna waxay sheegeen inaysan tan bise u ahayn wax garsoorahan ayaa yidhi gabi ahaanba waxaa muuqata in la iska indhatirayo go'aamada maxkamadaha Los Angeles ilaa iyo Portland Chicago ilaa iyo haddana Minneapolis waxayna sheegeen in ay gabi ahaanba ay rabaan in qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka hay'adda ICE looga yeero maxkamad si loo weydiiyo bal inay u hoggaansameen awaamirta maxkamadaha ahaa ee mar walba doonayeen arrinta lagu yareeyo dawladda hadaba in ay shaqo noqoto ayaa qarka ay u saaranta xisbiga dimuqraadiga ayaa u eg in aysan break uga soo kacaynin waxayna noqonaysaa in markii labaad ee dawladdu ay shaqo noqoto muddo dhowr bilood gudahooda haddii arrintan saasi ahaato waxaana ku dhici karta arrintan dhibaato aad u xoogan waxaana sidoo kale ku dhaqaale beeli doona ayaa la yiri dad aad u badan madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in dadku ay diidan yihiin arrimaha dhaqaale qaabka uu u wado gaar ahaan dadka saamiyada leh ayaa baqaya oo cabsi aad iyo aad u xoogan qaba Jacob Frey oo isagoo duqa magaalada Minneapolis ayaa sheegay in marba mar ka dameysa ay jiraan arrimo waaweyn oo la rabo in la isku qaso wuxuuna tusaale u soo qaatay in muuqaalka gadaal laga helay muujinayay in Alex Pretty iyo hay'adda ICE horey ay isku farasaareen in aysan ahayn qiil lagu marmarsoodo ee wuxuu ku yiri wax ku soo guura oo wax cusub keena dhinaca kalena ninkii weerarka ku qaaday Ilhan Omar ayaa la sheegay in lagu soo oogi doono dambiyo darajada saddexaad ee isku day dilka ah degmada Hennepin markaasi dacwad oogaheeda Mary ayaa sheegtay in ay ninkaasi lala tigsi doono maxkamad Anthony J. Kaczmarczyk konton iyo 5 jir ayaa waxa uu wajihi doonaa dambiyo heer federaal ah oo ah isku day dil iyo weerar uu ku qaaday qof waxaana uu ka soo muuqday maxkamadda US District Court of Minnesota isagoo la sheegay in uu silenge ay walxa ku jiraan markaasi uu u isticmaalayay haweeneyda kamid ah aqalka Congress-ka dalka Mareykanka lagana soo doorto degmada shanaad ee Minnesota halkaas oo la aaminsan yahay in ay ka dhici gaadhay khasaare aad u xooggan tafasiil fiican lagama hayo oo madax bannaan waxa ku jiray silinga dad ayaa isku dayay arrinta inay dacaydeeyaan qaar ka mid ah xildhibaanada hadaba xisbiga dimuqraadiga ayaa si aad u xoogan uga ficil celiyay hadaladii ka soo yeeray Homan ee ku aadan in uu dhimi doono ciidanka gobolka Minnesota laakiin waxay ku eedeeyeen in gabi ahaanba maamulkiisu uu iska indhatirayo inuu qaato mas'uuliyadda iyo inay raaligelin degdeg ah ka bixiyaan waxay filaan nin laga soo doorto gobolka Texas dalka Mareykanka xisbiga dimuqraadiga oo leeyahay Jackie Castro
ayaa yidhi maamul aan weligii allihii qiran khalad weligii allihii aan ka noqon oo aan waxba qiran oo khaladaadkiisa aan dhihin way iga xumaatay iga raali noqda dembiyada ay dadka ka galeenna ay yihiin kuwo toos ah sidee loo aamini aqalka sanadka ninka hogaamiya ee aqlabiyada yar ee xisbiga dimuqraadiga Jack Schumer ayaa sheegay in uusan gabi ahaanba wax uu Mr. Homan ku raacay isla halkaas uga muuqan sababtoo ah ma uusan muujin haba yaraatee ayuu yiri wax bili aadanimo iyo inuu ka xuyay khalaad ka dhacay raali gelintoon California xildhibaanka laga soo doortay Senator Alex Padilla ayaa sheegay in ay wali ay sii wadi doonaan in lala xisaabtamo hay'adda ICE wuxuuna si u sheegay wariyaha Dana Bash la yiraahdo in ay sii wadi doonaan baaritaano iyo in ay haweeneyda xataa waaxda cadaaladda maamusha Pam Bondi ay ku weydii doonaan sababta ay u bartamaysatay Tim Wells iyo Mr. Jeffrey in kale yaqaan Jacob Frey sababta ay u bartamaysatay senatorka laga soo doortay gobolka Ohio dalka Mareykanka ee Senator John Huston ayaa sheegay in uu arko inay arrin weyn oo wanaagsan ay dhacday maadaama xogaa ay dabceen ayuu dawladda federaalka ninkan oo kamid ah dadka sida weyn isagu markaasi codadka u helay Soomaalida laakiin xisbiga jamhuuriga gobolka Ohio oo ka soo baxa ay arrintaas u eega gobolka Iowa senatorka laga soo doortay ee xisbiga jamhuuriga Senator Chuck Grassley ayaa sheegay inuu u sacabinayo isla markaana uu qobka ciyaarayo guusha uu soo hooyay ayuu yiri Tom Homan oo ah inuu tanaasulay inuu waxyaalaha qaarkood keenay laakiin Jacob Frey ayaa sheegay in arintani ay ka weyn tahay taas sida daraadeedna ilaa hadeerto wax cuntamaya oo muuqda aysan jirin oo muujinaya ayaa leeyahay haddaba ma laga yaabaa in waxyaalaha qaarkood laga gaaro heshiis waxyaalaha qaarkood heshiis laga gaaro xaq ee la rabo in heshiis laga gaaro waxa kamid ah kiiska ninka loo yaqaan markaas ninkii dhintay ee loo jiray Alex Epridi oo ay kamid ka tahay in marka horeysa arrinta la xaliyo kadibna loo gudbo kiiska labaad ee Renegade haddaba dhinaca kale aan fiiriyo doorashada qiimaha badan iyadoo qirtaasi dalka Mareykanka wali ay ka taagan tahay waxyaalaha sheekooyinka la yaab kale dadka qaarkood ka sii yaabiyay waxa kamid ah nin Texas laga xiray sheekooyinka dalka Mareykanka ka dhacay ee uu sababay Donald Trump ee inta badan aan Mareykanka ka suurtagali jirin bariga hore gaar ahaan 8 sanadood ugu dambeeyay oo Mareykanka laga suuriyay waxaa kamid ah in lagu tunto xuquuqda insaanka si public way jirtay mar walba si cadaalad raa'in shakhsiyaad ay khalad u sameeyaan laakiin waxa laga hadlayaa systemku inuu si bareera uu u sameeyo wax asxaafada shacabka deriska dadka la soo doorto kuwa mucaaradka ku xilka ay ogaadaan baa laga hadlayaa way jirtay qof xabad lagu dhufto qof madow waa laga shakiyay hebel waa seeba loo dilaysa waxyaalahaas way jiray laakiin waxa laga hadlayaa dhacdo dawladdu intay ku lug yeelato dad loo diro maxkamada galaan kiisas ku weynaato oo naxariista raaca ama bil aadanimada taamanaysa waxaa kamid ah qisada Meher Terapishi qoyska loo yaqaan Meher Terapishi wuxuu daryeelayay wiilkiisa waxa loo jiray Wail ayaa loo jiray markii gobolka Texas laga soo xiray wiilkiisu 30 jir ayuu ahaa wuxuu la noolaa xanuun markaasi marle arag ah oo aad iyo aad disorder ah xanuunan markaasi disorderska loo yaqaano aad buna tabcaan u ahaa wiilkiisa 30 jirka ayuuna daryeeli jiray qofka kaliya u joogana uu ahaa xanuunka loo yaqaano Pompe disease ayuuna qabay cunuga yar ee ninka 30 jirka ah aabihii ayaana daryeeli jiray aabihii sharci ma uusan lahayn xanuunkan marka Pompe disease anigu ma aqaan Soomaali wax lagu dhaho laakiin waa xanuunka kala daadiya murqaha ayuu kala daadiyaa wadnahana wuxuu ku sii daayaa marka xanuun aad u badan ayuu keenaa kadina qofka oo dhan wuxuu noqonayaa qof murqiisa oo dhan aysan shaqeynaynin ama meel kasta oo murq kaga jiro way dabcayaan sida biyaha kale ayay noqonayaan marka kulli ma aqaano xanuunkaas waa disorder laakiin se hay'adda ICE ayaa soo xidhay bishii October xilli uu odaygu isku dayay in wiilkiisa rogrogo wiilka ayaana markaas xaalad aad iyo aad u qalafsan ku jiray qoyska ayaa dalbaday dadkii ehelka guud ayaa dalbaday in bili aadanimo darteed loogu sii daayo intan wiilkan xaaladdu isu noqonayso maadaama dhakhaatiirtu ay u sheegeen inuu toddobaadyo u noolaa doono ama bilo gudahood inkastoo nolosha Ilaahay hayay laakiin sida dhakhaatiirtu ay sheegeen ayuu noqday wuuna geeriyooday wiilkii iyadoo ay hay'adda ICE iyo dhammaan waaxda DHS ay diiday warqadii uu diray qareenka qoyska Ali Al-Hor ayaana ku tilmaamay inuu ahaa go'aankii uusan weligii qof iyo hay'ad Mareykana iyo maxkamad Mareykana midna uusan ka filaynin in qof xaalad noocaas oo kale ku sugan oo macnaheedu ay tahay aan cunugan markaan aasana aan xira hada doontaan markaa ma idira ay gabi ahaanba ay diideen laakiin isagoona aabihii macasalaama ku dhihin ayaa la aasay ama uu dhintay waxa ka sii daran markii uu dhintay kadib ayaa hadana loo sheegay hay'adda ICE
waxaana la yidhi kolley wuu dhintay ninkii sida cunugii wuu dhintay aabihii inuu aaso ayuuna ku dardaarmay odaygu wiilka ha aasto taana way diiday arrimaha naxariis darrada waaweyn ee dhacay ee hay-adda ICE ay geysatay iyo waaxda immigrationka ayay ka mid tahay haddaba gobolka Ohio dalka Mareykanka ayaa waxaa ka bilowday ayagana in dadka Soomaalida ah lagu tilmaamo in ay xarumaha caruuraha ay wax isdabamarin sameeyeen wax isdabamarintaas lagu eedeynayana waxaa ka mid ah ay yiraahdeen in ay jiraan dhaxatooyo lacag oo xitaa ku jiraan xarumaha iyaguna dadka lagu daryeelo ee la yiraahdo home careska ama meelaha kaarka caafimaadka bixiya waxay sheegeen dhowr arrimood oo la yaab leh in ay socdaan taasoo ah arrin isugu jirta ayaa la yidhi in Soomaalida la bartamansanayo iyo sidoo kale Soomaalida gobolka lagu soo maqan yahay Soomaalida gobolka Ohio oo iyagu ka marxalad duwanaa dadka ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa hadeerto u eg in loo soo dhilanaasay haddaba Soomaalida waxaad moodaa xoogaa in ay awoodda saareen ama ay aad uga fakarayaan waxyeelada ay geysan karto ICE laakiin Soomaalidu inta badan Soomaalida ICE ay dhibaatada u geysan karto sharci la'aanta way yar yihiin laakiin Soomaalida inta badan dhibaatada u geysan karto ama aad iyo aad ka loo dhibaatada ugu badan loo geysan karo wahalkii waa Soomaalida loo yaqaano dadka ganacsatada waxaan moodaa Soomaalida in ahanba meel kale loo maldufiyay markay noqoto ICE waxa ay daba socotaa ama ay aad u cadaadinaysaa waa dadka Isbaanishka iyo dadka kale Latin America ka yimid oo aad ka u tirada badan sharci la'aanta marka laga hadlayo laakiin Soomaalida waxa la rabaa in ganacsiga laga suuriyo xagga iyo Tigray aan aadnay dagaal iyo qabanqaabadii ayaa ka soconaya gobolka Tigray wararka ayaa xaqiijinaya in dagaaladii maalintii labaad ay sii socdaan iska horimaadada ayaana ka dhacaya deegaano dhinaca gobolka Tigray ee waqooyiga wadankaasi la yiraahdo Ethiopia ayadoo la sheegay in halkaas gaala baxayaan agabyo ciidan oo qada dhigaya wararka ayaa sheegay in deegaanka Samlet ay ka mid ka tahay galbeedka gobolka Tigray meelaha dagaalku ka dhacay ciidamada dawladda Ethiopia ayaa bari ugu dambeeyay oo dhan waxa ay wadeen howlgallo ay sheegayaan in ku baacsanayaan kooxo ayadoo oo wali waqtaankii gaadhay ciidamada Ethiopia kala daadashadii dagaaladii 2020 ka bilowday dalkaasi ay keeneen in ciidamo badan la eedaan laakiin si haatan xaqiiqooyinka imaanaya ayaa sheegaya in kooxda Tigray ay ciidan aad u xooggan ay urursatay Tigray ayaa laba qolo u kala jabay waxayna noqdeen koox ayagu Abiy Ahmed la shaqeystay iyo xisbiga barwaaqo iyo koox kale oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwo ayagu tumweyne oo ayaguna Ethiopia ay aad uga soo horjeedo karas ana aad u taageerta Tigray Eritrea madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa dhawaan ku tilmaamay in ay isla weynida Abiy Ahmed ay ku dameey doonto madax lulaadhac wuxuuna ku eedeeyay in aysan dawladda dalkiisu marnaba aysan u dulqaadan doonin xadgudub kasta lagu soo sameeyo biyaha dalkaas ra'iisul Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isku mashquulinaya in uu geopolitics-ka waaweyn ama juqraafi siyaasadeedka halistiisa wata ee gobolka uu ciyaaro xilli la sheegay in uusan gudaha wadankiisa u warhaynin sida wax u socdaan iyo inuusan xakameey karin isdiidooyinka qowmiyadaha kala duwan ee aad iyo aad isku diyaarinaya marba ka dameysa inay is warmeeyaan wararka qaarkood waxay xaqiijinayaan in Abiy Ahmed uu dhowr siyaasadood oo ku nabad iyo caanamaalay ee kamid ahaa inuu qowmiyadaha qaarkood isku jeediyo kuwa kale isagoo hoos u gumaado waxaana kamid ah kuwa sida tooska uu isugu jeediyay ama u leeday ayaa leeyahay Soomaalida iyo dadka loo yaqaano ama Soomaalida iyo dadka ilaa anfarta labadaas waxay soo taraya dadka dalbanaya in aysan imaan madaxweynaha maamulka Israel Isaac Herzog magaalada Canberra ee dalka Australia oo laga sugayay dadka dhaqdhaqaaqa ku jira The Hinda Foundation ayaa waxa ay dalbanayaan in loo ogolaanin dambiile kamid ah maamulka Netanyahu in uu halkaas yimaado waxaana barnaamijyada dadka sameynaya ay dalbanayaan in Australia National Imams Council ururka loo yaqaan isaguna wadaadada ayaa dalbaday gorsi warsan dawladda Australia aysan soo dhaweynin hoggaanka iyadoo dhinaca kalena ay jiraan xubno kamid ah kuwa Yuhuudda oo iyaguna ku baaqay inaan Australia la keenin ay yiraahdeen Isaac Herzog Hindi Rajab Foundation oo gabadh yar oo Israel ay dishay magaceeda ayaa loogu yeeray warqad madaxweyne ra'iisul wadankaasi Australia waxaana laga dalbaday in uusan wadanka iyo dalka toona uusan keenin nin noocaas dhanka kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu weydiistay madaxweynaha dhigiisa ee dalkaasi Russia Vladimir Putin inuu muddo toddobaad uu ka daayo hujumta iyo jacda magaalada Kiev ee xarunta wadanka Ukraine maadaama uu sheegay in dagaalada aadka u ba'an aysan wanaagsaneyn xilli ay jiraan qabawe aad iyo aad u daran taasoo uu sheegay inuu si shakhsi ah oo telefoonka ugu qeyraamiyay Mr Putin waxaan weydiistay in uu cagta u dhigo dagaalka muddo toddobaad si alaajigeedna si ay arintu ay u noqoto marba marka ka dameysa ay yiraahdeen
mid sii la daanasa ama xun kasoo naascadaadaan ayuu yidhi xilli uu sheegay inay arrimaha dagaal hadda la qaado iyo weliba duqeymaha tarbeelka ay maalin walba ay sii wado xukuumadda madaxweyne Vladimir Putin ay dhali karto ama ay keeni karto yiraahdeen markaasi qabowga gabadanada halkaas ka dhacaysa iyo inay korontada inta hadhay ay sii go'do. arrintan ayaa loo arkaa inay muujinayso fariin cad oo Trump u diray wadamada reer galbeedka ee iyagu maalin walba u hanjaba Ruushka inay jirto cilaaqaad shakhsi ah oo u dhaxeeya isaga iyo Putin iyo Trump ayaa la aaminsan yahay inay jiraan cilaaqaado shakhsi ah oo u dhaxeeya taasoo si joogto ay marmarka dambaysa ay u wada hadlaan waxayna taasi wada korkor ku riday wadamada reer galbeedka. dhanka kalena waxaa sii socda weli qorshayaasha aadka u xoogan ee durbaantumashada dagaalka bariga dhexe iyadoo laga baqayo xabad inay afka ka hado. afayeen u hadlay wadanka Iran ayaa sheegay in ay dawladdiisu aysan waxba ka tagaynin haddii uu dagaal bilowdo iyadoo waaxda Pentagon ee dalka Mareykankuna ay dhankeeda sheegtay in uu dagaalku u yahay mid diyaariye. afayeenka u hadlay dawladda dalkaasi Iran ayaa ka digay in go'aanku uu noqon doono midaan la mahadin iyo in ay qaadi doonaan talaabooyin culus oo jawaab degdeg ah oo jadhiba la gaarsiiyo goobaha laga soo weeraray. afayeenka ciidanka wadaadada ee kacaanka General Mohammed Akraminia ayaa telefishinka khudbad uu ka jeediyay wuxuu si toos ah ugu hanjabay groupka iyo kooxda saaran USS Abraham Lincoln ee la soo dhigay gobolka iyo sidoo kale diyaaradaha laftooda wuxuuna ku tilmaamay in ay yihiin gabi ahaanba kuwo u nugul weerarka Iran haddii ay jirto xisaab aad iyo aad u khaldan isla markaana arrintu ay tahay wax yar ayaan sameynaya wax weyn inama dhici doonaan. waxa uu sheegay in gabi ahaanba taasi ay noqon doonto waxba ina kama jiraan. dhinaca kalena waxa uu sheegay in inta badan saldhigyada dalka Mareykanka ee gobolka oo dhan loo diray ogeysiiska in ay galaan heege. dowladda Mareykanka ayaa gobolka bariga dhexe waxay ka joogtaa meelo aad iyo aad u tirabeer dalalka Turkiga Qobrus wadamada waxaan kala saari doonaa inta ay sida xoogan u joogto ama ay saldhiga ayagu ay joogaan ay maamulaan oo ay Mareykanku maamulaan iyo kuwa marka ay taaltaal u joogaan oo saldhiga ciidamo kale oo wadamadaas ay ama ka agdhow yihiin ama laga caawiyo. Turkiga saldhig ay ku leeyihiin 100% ay maamulaan. Qobrusna sidoo kale saldhig ayagu ay maamulaan. waxaana jira inay saldhig kale oo toos dowladda Mareykanku ay maamushay ku leeyihiin dalalka Kuwait, Bahrain iyo Qatar iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabta. waxa ay sidoo kale saldhig ay toos u maamulaan ay markaasi ay ku leeyihiin dalka Jamhuuriyadda Djibouti. haddaba wadamada ay sida markaasi taltaalka ay u joogaan ama ciidankoodu aysan 100% aysan saldhiga maamulaan laakiin ciidamo kale oo dalalka marti galiyaasha ah ay ka agdhow yihiin waxaa kamid ah wadamada Suuriya, Lubnaan, Urdun, deegaanka Qasa oo agteeda ay soo degeen dhawaan oo ay ciidan ka samaysteen. wadamada ay kamid ka tahay dabcan Saudi Arabia oo iyagana wax ka degan yihiin Oman oo aaga ka agdhow yihiin ayaa kamid ah. sidaa daraadeedna dowladda Mareykanku gobolka bariga dhexe ciidankeeda jooga oo dhan heeganka ugu ballaadhnaa ayaa la geliyay. tan ayaa timid iyadoo dhanka kalena hay'adaha qaramada midoobay hay'adaha annaho qaramada Yurub ayaguna ay ku dhawaaqeen in ay liiska argagixisada ay ku dareen ciidanka ilaalada kacaanka wadankaasi Iran. madaxa guud ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub haweeneyda loo yaqaan Kaja Kallas ayaa sheegtay in ay ahanba tani tahay waajibaad ay qaateen. waxaanu u aqoonsanay ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran ee Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ama Corps inay noqon doonaan urur argagixiso ayay tiri maadaama ay ku lug yeesheen weeraradii ugu dambeeyay ee lagu naafiyay dadkii shacabka iyo mudaharaadii ayay tiri Kaja. waxay ku tilmaantay in gabi ahaanba ay cadaadiska halkaas ka dhashay iyo naxariis darrada aysan noqon doonin kuwa aan laga jawaabin. Kaja ayaa markii dambe warbaahinta bulshada ku soo qortay in taliska uu dilay kumanaan kun oo dadkooda ah sidaa daraadeedna ay tahay jidkii ay u qaadeen in ayagu ay saqiiraan ama ay laqmadaan. haddaba Iran ayaa dhankeeda hadda waxay ku sheegtay wararkaas oo dhan inay yihiin kuwa inay wax ma kama jiraan. waxaana ku tilmaantay in barnaamijyada halkaas ka dhacay ay ahaayeen kuwa abaabulan iyo shar la soo mutaxay oo ka yimid ay yiraahdeen dhankaas iyo Iran Israel iyo Mareykanka oo Iran ka dhanka ah. dhinaca kalena Iran ayaa sheegtay inay qorsheynayso gabi ama inay qabato bandhig military oo rasaas iyo hub aad u culus la ridayo oo lagu qabto marinka Hormuz xilli ay Mareykanku ay doonayeen inay ku dhawaadaan marinka istiraatiijiga. dowladda Iran ayaa soo bandhigtay cutubyo ciidamadeeda qalabka sida oo kala duwan kuwaas oo si aad u xooggan heegan ugu ah in ay bilaabaan wax loogu yeeray markaasi hub ridis iyo waliba bandhig military oo dhinaca ciidanka badda ay ku qabtaan Strait of Hormuz taasoo la sheegay in xaaladda cirka u sii qaadaso. telefishinka qaranka afkiisa ku hadlay Press TV ayaa la arkayay isagoo soo saaraya ciidamo markaas loo
jiidayo dhinaca kalena dowladda Iran ayaa la sheegay inay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku kala khabeenayso agabkeeda iyo ciidankeeda sidoo kalena ay ciidamada muhiimka goobo muhiim ay dhigtay halka gantaalaha qaarkoodna dhulka hoostiisa laga soo saaray si loo isticmaalo iyadoo sidoo kalena sheegay in kumanaan kun oo xabo oo drones la diyaariyay si ay uga qayb qaataan rushaynta iyo weerar celiska qaar kamid ah khubarada ayaa dowladda Mareykanka uga digaya in weerarku isku bedeli karo mid aad iyo aad u ballaaran Iran ayaa dowladda isweydiinaya talaabooyinka ay qaadi karto Iran waxay haysataa agabyo dhowr ah iyo waliba gantaalo iyo drones Iran waxaa la aaminsan yahay in kumanaan kun oo ballistic missiles iyo drones kala duwan haysato waxaana la xaqiijiyay in dhammaantood ay wada gaari karaan saldhigyada aynu tirinay ee dalka Mareykanka bishii June markii Israa'iil ay weerarka la yaabka lahaa ee Iran ay ku qaaday Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran markiiba waxa ay soo dirtay gantaalo hub ah xilliga habeenka ayayna isku soo dartay ballistic missiles drones kuwaasoo Israa'iil gabi ahaanba u geystay dhibaatooyin aad u xooggan qaarkoodna waxa ay daawamarteeyeen oo si guul ay u dhaafeen waxa ay Israa'iil inta badan ay ku tilmaami jirtay qalab difaac oo horumarsan Iran ayaa dhinaca kale waxaa la sheegay in gabi ahaanba bariga dhexe oo dhan ay wada weerari karto warbixin la soo saaray sanadkii 2024 ayaa la sheegay in aysan Iran ahayn wadan hadeerto kamid ah wadamada awoodda yar ee kamid yihiin wadamada awoodda badan waxaana la sheegay in ay dhammaan gobolada iyo dalalka kala duwan oo dhan ee bariga dhexe iyo qaybo badan oo kamid ah Yurub ay gaari doonaan gantaalaheeda qaarkood waxay gaaraan ilaa 3,000 oo kiiloomitir dhawaana gantaal nooca la yiraahdo Sumar ayaa lagu tilmaamay in uu soo baxay waxay dadka qaarkood sheegeen inuu yahay cruise missile kaasoo macnaheedu ay tahay in uu yahay mid tumaatisan halka gantaalka kale ee Sachil isagana la yiraahdo uu yahay gantaal ballistic missile ah oo gaari kara ilaa 2,000 oo kiiloomitir gantaalka loo yaqaano Sachil ayaa la sheegay sidoo kale in uu leeyahay tiro aan la cayinayn taa macnaheedu ay tahay in production kadib marba uu taagay diyaaradaheeda loo yaqaan shahiid ama shahiid la yiraahdo 129 ayaa dhawaan la ogaaday in ay gaarayaan ilaa 1,700 oo kiiloomitir oo u dhiganta ilaa 1,060 mayl halka ay sidoo kale la ogaaday inay Iran leedahay dooqyo kale iyo agabyo kale ay wax ku jijibiso doonyo markaas dheereeya oo ayagu ah kuwa ismiidaamiya ayay wararku xaqiijinayaan inay haysato sidoo kalena waxaa la sheegay in inta badan saldhigyada dalka Mareykanka ay weerar ku qaadi karto waxyaalaha kale ay sameyn karto waxa weeye inay abaabusho dhammaanba kooxda proxy ah oo ay ku jiraan kooxda loo yaqaano kooxda reer Ciraaq ee Kataib Hezbollah la yiraahdo iyo kooxda kale la yiraahdo Harakatu al-Nujuba iyo sidoo kale xarakooyin kale oo xarakada Hezbollah ay ku jirtay gobolka ka dagaalanta gaar ahaan wadanka la yiraahdo Lebanon Abu Hussein al-Hamdawi oo ah taliyaha ciidanka kooxda Kataib Hezbollah ee wadanka Ciraaq ayaa sheegay in gobolka oo dhan uu guba doono isla jodha Iran weerarka lagu bilaabo saadaraadina ayagu aysan sugi doonin inta hadhowta la dhibaateeyo ololihii aad ka xooganaayay dowladda Mareykanka ay doonaysay in hubka lagaga dhigo kooxan ayaa gabi ahaanba saqiiray kadib markii bishii November oo deadline ku ahaa wadanka Lebanon laga dhigi kari waayo hubka kooxda Xuutiyiinta waa awood kale oo ayagana ay ku tashanayaan gobolkana joogta sidoo kalena waxyaalaha Iran ay bixisa doonto waxa kamid noqon doona inay qaado talaabooyin dhinaca dhaqaalaha oo ay ku ciyaami doonto gabi ahaanba dalka Mareykanka iyo wadamada bariga dhexe sida in gacanka Strait of Hormuz ay albaabada isugu dhufato iyo in ay halkaas dhigto ciidamo iyo agabyo qarxa gaar ahaan kuwa badda minooyinka badda la geliyo Iran sidoo kale waxaa la sheegay inay cartankeedu uu yahay mid sii weynaa kara xaaladan ka sii dari kara wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka waxay sheegaysaa inay dagaal diyaar u tahay isla markaana wasiirka gaashaandhigga dalka Mareykanka wuxuu gaashaandhigga dagaalka la baxay Pete Hegseth ayaa sheegay in dhammaan khiyaaraadka oo dhan uu halka yaalo gaar ahaan kuwa uu yiri in lagaga hortago hub nuclear inay Iran samaysato sheekooyinkii ama narrative-kii ama sheekooyinkii abuureen xukuumadda madaxweyne Donald Trump ee ahaa dad banaanbaxaya ayaan badbaadinayna ayaa isjaladay kadib markii laba banaanbaxe oo Mareykan lagu dilay gobolka Minnesota waxayna taasi cirka ku shareertay in isweydiinta ah in cid kale laga yiraahdo hubka ka dhigana inay noqotay mid aan xaqiiq ahayn dhanka kalena diyaaradaha reer galbeedka ayaa bilaabay inay yareeyaan dhammaan duulimaadadoodii ay ku aadanaa dhinacaas ee Tel Aviv inkastoo goortii horeysay ay joojiyeen in ay ka wareegaan hawada wadanka Iran Royal Dutch ama ay ka wareegeen hawada dalka Iran Royal Dutch Airlines KLM ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay duulimaadadeedii ay ku tagisay wadanka ama nidaamka Israa'iil iyadoo wadan ay u yaqaanaan leena waxaanu diyaar u nahay inaanu hawlgalka mar kale aanu sameeyno isla markaana waxaanu joojinaynaa dhowr meelood oo kale dalka Sacuudiga ayay dhowr magaalo ay tagayeen ka joojiyeen sida magaalooyinka dhinaca bariga gaar ahaan Dammam iyo Riyadh iyo Dubai sidoo kale waa ay sheegeen in ay gabi ahaanba
ay dib u bilaabayaan dheh ayay sheegeen saddexdan meelood laakiinse Tel Aviv ayaa ka mid ah meelaha ay haddeertay ku bedeleen. Lufthansa Group ayaa iyaguna dhan kala sheegay in ay bilaabi doonaan joojinta Israa'iil in ay duulimaado ku tagaan. dowladaha caalami carabi ayaa isku dayay laakiin inay warka qaraabeeyaan. amiirka dalka Qatar Amir Tamim bin Hamad Thani ayaa khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha wadanka Iran Mas'ud Pezeshkian wuxuuna u sheegay in wadankiisa uusan raalli ka ahayn waxaan nabad ahayn. amiirka dalka Qatar ayaa markale xaqiijiyay in dalka qatar uusan noqon karin meel lagu bardoodamo. Mas'ud Pezeshkian iyo Amir Tamim bin Hamad Thani ayaa wararku sheegayaan inay isafgarad ka gaadheen arrimaha qaarkood laakiinse waxaa la sheegay inaysan jirin banaanqaad iyo damaanad ka timid dhinaca Iran oo iyadu Iran waxay weli aaminsantahay in ay marka hadii la soo weeraro oo Mareykanku uu soo weeraro ay xaq u leedahay in ay meel kasto Mareykan ay ka heli karto ay ku gaadho maadaama aysan jirin gantaalo hadeerto dalka Mareykanka gudihiisa soo gaaraya oo laga soo gami karo xaggaasi. wararka ugu dambeeya ayaa xaqiijinaya inay dhacayaan kulamo waaweyn oo madaxweynaha Donald Trump uu ku doonayo inuu ku xaqiijiyo sida arrinta loo gali doono. mid ka mid ah saraakiisha arrimaha dibadda dalka Mareykanka madaxda US State Department ayaa sheegay in aan la soo dhaweey doonin qoysaska ayuu yiri saraakiisha wadanka Iran dalka Mareykanka laga mamnuuci doono ayadoo cudbo aysan filaynin haddana in saraakiisha wadanka Iran qaarkood ay aadaan. haddana wararka qaarkood ayaa sheegaya in ay soo badanayaan cadaadiska dalka Mareykanka ka haysta wadamada caalamka islaamka gaar ahaan waxaa la sheegay xataa wadamadii aadka Mareykanku ugu tashanayay caalam islaami sida wadanka Azerbaijan ayaa ogeysiiyay dowladda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inaysan ku jirin duulaan Iran kana Ceyhun Bayramov oo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Asariga ayaa sheegay in wadankiisa uusan rabin inuu dagaal ka qayb qaato. ma rabno inaan dagaal ka qayb qaadano. ciidamada ilaalada kacaanka wadanka Iran ka sokow in ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan haddana waxaa la sheegay in dhinacyada oo dhan ay diyaar garoobeen. afayeenka baarlamaanka wadanka Iran Mohammad Baqari Qalibaf ayaa u sheegay baarlamaanka wadanka in loo diyaar garoobo dalka in la difaaco. waxaa kaloo shacabka wadanka Iran loo daaray wilgooyin iyo waliba sidoo kale maansooyin dhinaca nabadda nashiidooyin kala duwan oo si aad u xoogan. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iran ayaa ku tilmaantay go'aanka wadamada Europeanka ay ugu yeedheen in ciidanka qaranka ee wadankaasi ama ciidanka militariga uu yahay ciidan argagixiso ah inay tahay arrin sharci darro ah isla markaana muujinaysa in ay hoggaansameen ayaa la yiri awaamirtaas Mareykanka. badda loo yaqaan Arabian Sea ilaa iyo inta laga gaariyo afaafka meesha biyaha ay iskaga darsamaan ee Persian ayaa la arkay iyadoo ciidanka dalka Mareykanka la leeyahay darta sabada ay dhigteen. dowladda Mareykanka ayaa agabkeeda halka ku tabsatay waxaana la leeyahay ujeedada ugu weyn halkaas ay u dhigantay waa hal shay waa in ay marba ka dameysa ay isu diyaarso dagaal. Iran madaxweyne ku-xigeenkeeda Mohammad Reza Arif ayaa dhinaciisa kale wuxuu sheegay in wadankiisu uu noqon doono wadan dagaal gala xaq ah hadii la soo weeraro. wadankana dagaal ayaa loo diyaariyay. magaalada Tehran ee xarunta wadanka Iran ayaa la sheegay in ay gabi ahaanba daruuraha colaadu ay marba dhinac u gulguulayaan waxaana la sheegay inay siyaasiyiinta wadanka oo dhan ay hadeerta ay mideynayaan aragtidooda ku aadan wixii la sheegi lahaa. qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka qalabka sida wadanka Iran ayaa soo xigatay wakaaladda wararka Mehri News Agency waxaana la sheegay in ciidamada lagu sameeyay sifayn iyo waliba diyaarin iyo sidoo kale in loo diyaariyay ayaa la waxyaalaha qaarkood saanahan ciidanka ilaalada kacaanka ee dhinaca gantaalaha ridi doona ayaa loo diyaariyay dawooyinka energy-ga ee tabarta ee dadku inta badan ay soo jeedi karaan. waxaa kaloo loo diyaariyay ayaa la qalabyo kale oo ay isticmaali karaan. waxaa kaloo loo diyaariyay cuntooyin aan markaas ahayn cuntooyin la kariyo aan ahayn cuntooyinka qasacadaysan ee processed foodka wax loo yaqaano ayaa la sheegay in Iran ay ciidankeeda u diyaarisay ayadoo la sheegay in wadanka dagaal loo diyaariyo ciidan walba loogu talagalay hadii arintu ay duqeyntu kala joogso weydo in ay markaas meeshooda ay waxa helayaan ay ku helaan sida ay hawshooda u sii wataan. wararka ayaana u eg markaas in wadamada reer galbeedku hadaba waxa isweydiin mudan maxay go'aanka noocan oo kale u gaareen ayadoo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil markiiba Guardian Sacr uu ku tilmaamay inay yihiin wadamo barakaysan oo ducadoodu ay ku dhacday yani waa idin duceeyni in uu yiraahdo inaad saarteen Iran ciidankeeda ay waxay ugu yeereen markaasi cunaqabatayn ama inay ku dareen liiska argixisada. tan ayaa loo arkaa inay tahay ayaa la yiraahdo hal arrin oo cadeynaysa in ay arrintu tahay mid ay doonayeen naftooda ay Trump kaga jiheeyaan oo Trump xaggaas uu ku mashquulo iyo Iran maadaama ay iyagu lafooda ka baqayaan oo ama isleeyihiin idinka iyadu ku mashquuli doona. dhinaca kalena waxaa la ogaaday in agabyada hay'adda US Immigration and Customs Enforcement ay u isticmaalaysay inay dadka ku qabqabato ama dadka ay ku musaafiriso inuu kamid ahaa qalabka ayaa la tiknoolajiyad ay leedahay Israa'iil oo qaarkood laga baqay in horey Mareykan looga mamnuucay.
wargeyska Washington Post dalka Mareykanka ayaa sheegay in ICE ay isticmaashay tiknoolajiyad laba shirkadood oo iska leedahay Israel kuwaas oo ay u isticmaalayso dadka inay qaato Dragon Solutions oo la aaminsan inuu yahay software markaasi si aad u xoogan loogu shubo telefoonka kadibna kuu sameynaya isla markiiba xog ayaa lagu tilmaamay in ay isticmaalayeen iyo nooc kale oo la yiraahdo Celebrite labadan noocba waxa ay judhaba qofka ay u sheegayaan xogta ruuxan meesha uu ka yimid dambiyada uu galay iyo waxyaalo noocaas oo kale wararka qaarkood ayaa sheegaya in ay arintani tahay mid xogta qofka dhan lagu ogaanayo waxaana kamid ah xogta markiiba arrimaha Internal Revenue Services IRS haddii ay lacag ku leedahay Social Security Administration-ka iyo waliba arrimo waaweyn isku soo duuduubo tan ayaa qaar kamid ah ay ku tilmaameen dadka aadka aqoonta ugu leh sharciga Mareykanka inay noqon doonto xadgudub haddii lagu helo dowladda Mareykankana ay noqon karto mid kale oo iyaduna buuq dhinaca sharciga keenta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacd ku maraya inuusan joojin doonin howlgallada ka dhanka ayuu dadka soo galootiga iyo sidoo kale in uu sameeyay xataa hay'ad iyaduna uu sheegay in xatooyada iyo wax hadayaasha bacsan doonto amaanal